ورحمة الله وبركاته. سؤال barnaamijka Ramadaanta Nolosha waxaa qadaynta toddobaad. Maanta waxaanu ka hadli doonaa gabadha aad jeceshahay ma tahay mid si dhab ah ku jecel. صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 Gaag aynu bilowno. Maanta waxaanu baranaynaa qodobo ka saacidaya inaad ogaato gabadhan aad la socoto inay tahay gabadh si dhab ku jecel iyo in kale. Qodobkiina koowaad waxa weeye ku ogaanayso waxa aad wada socotaan muddo dheer. Haddiiba gabadha aad inka xiriirka la wadaagayso aad wada socotaan muddo badan waxa ay u badan tahay ayna tahay inay gabadhan si dhab ah ku jeceshahay. Maxaa yeelay gabdhuhu waxa ay ku raagaan waa waxay naftooda xasilooni ku dareento meel ayna xasilooni ku dareemayna ma sii joogaan. Marka qodobka koowaad haddii aad ka heshid jacaylkaaga maanta waa mid sidaa daraaddeed qodobka koowaad haddaad ka heshid jacaylkaasi oo gabadhaas kuu qabto waa mid xaqiiqa oo ku salaysan mustaqbal. qodobkiina labaad aynu ku ogaanayno inay gabadha si dhab ah ku jeceshahay in kale waxa weeye waa ay ku daryeeshaa. mar kasta waxay ku dareensiisaa muhiimadaada. mar kasta adiga ayay ku daryeeshaa oo waxay ku tusisaa danayn iyo jacayl fara badan. qodobkiina saddexaad aynu ku ogaanayno inay gabadha si dhab ah ku jeceshahay in kale waxa weeye waxa aad tahay qayb ka mid ah nolosheeda. kaliya iyada kuma jecla waxa ku jecel qoyskeeda, asxaabteeda iyo faamiligeeda. maadaama dadkaasoo dhan ku bartay jacaylkaagana ay ka dhaacisay waa qoftii si dhab ah ku jecel. maxaa yeelay qofku ama gabadhu ma gudbiso oo ma barto qofna faamiligiisa iyo asxaabteeda ilaa qofkaasi ka dega qalbiga mooyaane. waayahay qodobkiina afraad aynu ku ogaanayno inay si dhab ah ku jeceshahay in kale waxa weeye waxa ay mar kasta kuu sheegtaa runta. xataa marka ay kaa xanaaqdo waxay kuu sheegtaa sababta ay kaga xanaaqday. marka adiga kuu hinaasto waxay kuu sheegtaa sababta ay kaaga hinaastay. marka adiga kaa xumaato waxay kuu sheegtaa sababta ay kaaga xumaatay iyada oo sababta raacinaysa. qodobkiina ugu muhiimsan oo mid ka mid a qodobadaas qodobka shanaad waxa weeyaan waxa ay kaala hadashaa mustaqbalka. haddiiba aad aragtid liis dheer oo ay ku qoran yihiin magacaanta carruurtaada la dhali doontaan ee aad u noqon doontaan aabiyahooda gabadhaas waa gabadh si dhab ah ku jecel. maxaa yeelay ma jirto gabadh samaysa sidaasi ilaa qofkaasi ay u aragto qofkeeda la wadaagi lahayd mustaqbalka. qodobkeena ugu dambeeya ahna mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan waxa weeye sheegtaa waxa ay jeceshahay iyo sababta ay u jeceshahay. waxay ku sheegtaa hadafyadeeda iyo himiladeeda iyo sida ay ku gaadhayso iyo sida ay u jeceshahay. qofna ama gabadhna lama wadaagto wiil ilaa ay u aragto qof mustaqbalka iyada hantiyaya maadaama la wadaagayso dhammaan mustaqbalkayga. haddaba haddii aad ka hesho gabadha hadda la socoto daryeel fara badan in muddo badan aad wada socotaan in aad ka mid tahay nafsadeeda nolosheeda oo ay ku bartay asxaabteeda iyo qoyskeyga oo si lamid iyaguna ay ku jecel yihiin in ay kaala hadashay mustaqbalkiina sida ka waran gacali haddii mudana guri noocaas guriga wada degi lahaydeen iyo carruurta wada dhali lahaydeen gabadhaasi waa gabadh si dhab ah ku jecel. waxa aanan kugu boorinayaa inaad xiriirkaa dhamaystirtid oo aad dhisatiin aqalkiina mustaqbalka. ku noolow jacayl. mahadsanid. maca asalaama. صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم